Ibrahim Mahdi Buuba afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay eedo loo soo jeediyay murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani kadib markii gudoomiyaha xisbigaasi uu sheegay haddii uu hanto jagada u sarreysa dalka in uu mushaaraadka u kordhin doono ciidamada qaranka balse eedo kaga yimi wasiir ku-xigeenka maamulka degmooyinka iyo gobolada wasaaradda amniga Jaamac Cabdilaahi Biin ayaa waxa uu maalintii shalay sheegay in uu gudoomiyaha xisbigaasi wado kicin ciidan waa sida hadalka uu dhigay runtii wax la yaabo kulmiye xilliga mucaaradka weyn ogeyn balaqaadada ugu badan wuxuu sameyn jiray ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan haddii bilis yihiin ama asluub ama military ba waxyaabaha ay u ballanqaadi jireen waxaa ka mid ahayd buuggooda ku taalay ee weliba ku beenooday aanay ka dhabaynin inay boqolkiiba 300 ama 500 wax u dhigantaa u kordhin doonaan ciidamada cid ku qabsatay xukuumadda markaa joogtay iyo cid ka daba hadashay midna ma jirin marka waxaan u aragnaa baqdin ay ka qabaan taageerayaasha xisbiga wadani ee soo badanaya xaqna waxa uu leeyahay ciidamadu inay codeeyaan كامبينك دورشدا عيد وديد كرتا إني لا hadlo oo wax loo sheego oo dugsiyo loo dhisi doono iyaga iyo caruurtooda iyo mustaqbalkooda ka shaqeeyo wax bara ama caruurahooda iskuulada looga dhigi doono free way ku jirtaa barnaamijka xisbiga wadani waxa kale oo ku jira in dhakhaatiir gaar ay u leeyihiin ciidanka biliska iyo militariga loo dhisi doono oo iyagii xaasaskooda iyo familladooda dawadu ay bilaash noqon doonto marka ciidan ugu qabsanaysa oran karta maxaad uga hadashay arintaas waa qof iska riyooday ama biin ha ahaado ama kuwa kale ku horeeyo iyaguna ka daba hadlaayo ereyada noocaas kale ku hadlaayo ha ahaadaan waa iska riyoodeen dad waxaan jirin ku hadlay baan u aragnaa arintayda dhinaca kalena Ibrahim Mahdi Buuba afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ayaa waxa uu sheegay in gudida loo saaray golaha wakiiladu ay soo xalin doonaan khilaafkii dhex yaalay in muddo golahaasi go'aankii maxkamadda ka soo baxay gudina ay isu saareen ka wada hadla arinta oo soo bisleeya meel la soo dhiga cidda gudoomiyaha sharciga noqonaysana go'aankeeda soo saaro iyagu qaata doorkii maxkamadda dastuuriga ay ka gaabisay iyagu qaata in maanta ay jiraan shaqeynayaan taasa ilaahay mahadiya bulshada reer Soomaaliland iyo qarankana guul ah Cabdirashiid Cali Barre Saab TV Hargeysa